قصة عجيبة ريب المجن من عدب أي وحي خطركو أباشا الإمام أبو إسحاق المروزي يا قصة عجيبة وري وحكوري أردقس أبو زيد المروزي أخذ عنه أبو بكر القفال الشاشي وعنه الصيدلاني بسند صحيح قصة الشافعية ورياه أبو إسحاق المروزي وحوجي نين هانتيلا أيا بغداد أندرس كو أهيد وبدنا أنا لهين هل ويل بوبد كلها ويلكي دوق أو ما أكو نين حافظ الدقن بالغوته ما وإجي ويلكو odaygan oday waayeen weeye wiil kaas oo qaysta maalinka dambe aanoo socdaan isku soo baxay duqi oo socda markaas uu yiri yaan is wareysan xagee u socota wuxuu yiri sanadkan waxaan rabaa inaan xajiyo wiilkaygana aan kaxeeyo oo maxaad rabtaa wuxuu yiri ujeedada u weyn xajka aan kale waxa kamida ujeedada weyn waxa kamida inaan nimanka reer bani mudaj aan helo maka lagu kala baxo wiilka loo bandhigo qaa'if hidi sooca ما أنا علي مسوى اللي دوميان أوكاد أبو إسحاق المروزي وحارب ويل كانت كلا هذا هاي نمن كان قافل ونمن امتحان وضدك ويك على سهران وحد يلي ولا أسطورنت هاي إسلام تاي ويل كان إسكايسو وراد وحج ويل كان فراك قال ما يقول وحاجرت إن ما كيستاجو هيبني مدجن أنك لبحنو مساسها فرانك قاضي مو حجي ويل كيسيب ولا تجي نينك اللي قلت من سنة إلهي أمريكي قليها حجاج الصعود بكجرة رفقات بكجرة وقال مكة اللي تجي أيانا أنا أقول دورك أبو حيبول ويلكي يا نينك اللي قلت من سنة يدقيق كلا يركف ربنا جماعة السعودية بلا دحفر يسيي نين قائف ورهيب بن المدج الله يعني حال ويل كان نينك دلي صوصا وفيري حولي ويل كان انت فرد من نمر عليهم بول كي لو قلت ما يا كجرا وفيري كي لو قلت ما دحفدي وحول نين ما دلين بو ويلك يا odaygi dhalay weynka banaanka u baxay hayo qoliyo cusub baa la keenay wiilka la dhex fadhiisiyay reerkoo dhan xaafadii wuxuu ma dhalin kuwa kale ma dhalin saddex markuu kiciyay yaa loo odayga loo qoxay wiilkii meel la saar la yahay ninka qaafka inuu wali taagahayaay baynakee asaga baa hal soo fuulay oo watay soo gaadiidsaday oday weyn oo adoon ah oo aabihii u lahaan jiray oo aabihii ka dhaxlay baartiga ku wada oo ku hogaaminay ninka qaafka ay hidi soocay reebani mudlij ee wiilka dul taagnaa markuu saa ninka u soo baxay irtiga saaraa iyo adoonka weynay waayeelka ku hogaaminayo xura Allahu akbar xura ar-raakibu abu hada al-ghulam buri وقائد البعير أبو الراكب بوري بلا بك دعدي حوري الله أكبر بوري ويلك هذا أنت اللي وريجنها أبيه وكارتك سو سارن بوري لما كنت امتحان باش هو ريب المدرج بس كإلهي سيوي ما علم اللابرتما واهبه وحوري الراكب وحوري وأبو هذا الغلام نينكرتك سو سارن ويلك أبيه ويبوري هوش عضاتي لحور لكن قاعد كنينك صارن اي سو سعودي ويلka dhalina aabihi waa ninka hogaaminaya adoonka weyn ee ritiga wada ayaa ninka ritiga saaran dhalay buu odayga xaajiga ahaa wuxuu intaan suuxay baan dhacay fawaqactu maghshiyan alayhi bala ba ka dhacdo sooma muxuu raadinay wiil buu rabay inuu saxadee asagii baa la saxo lagu foofay odaygu markuu miirsaday adagu biyo lagu shushubo miirsado kacay xajkiisa dhameystay buu noqday Baghdad buu ku noqday markuu Baghdad ku noqday buu hooyadii dhuunta ku dhuxooyay hada run ii sheegin waa la kala baxaya nin qaa'if hooyada sooca ayaa cadeeyay wiilkan aan dhalay Arab way samartay wiilkan aan dhalay laakiin anigu wuxuu yiri odayga adoonka ay hebelay weynaan waan dhaxlay aabay ka dhaxlay baa ku dhalay warka meel saar buu doqdi waxay tii waxba ay diin run baan ku sheegayaa aabaha oday waayeela oo qad balaqa min al-kibar itiyan bu'a waabaan isku dhacnay markaan isku dhacnay buu saddex dalaqad igu furay markuu ii furay ayuu ka qoomay hadana furitaanki inuu isoo cishado damcay maxal buu samaystay odaygan weyn ee adoonka ah
ayuu igu maxlalay habeenaan la bariyay kadib waxaan u maano wuxuu igu maqan yahay yuduqa aabbaha dib ii soo ceshaday oo mar labaad ii guursaday saasaad ku dhalatay saasaad ku idan muxuu noqday waa wiil maxlal ah maxal ku dhashay duqan wiilkiisana nasab buu noqday asaga dhalay si toos ah hawsha waxa kala saaray hal oday reer bani mudlaji ah waxaad marka fahmi kartaa nimankan qoyskan ma aha sayidina umar qaa'if buu ahaa aad hawsha ugu dheeray aan iskaga tagnee qisada khatar weey fa inta daacaya marka DNA bay barataaye waxa weeye hidasooci reer bani mudlaji DNA wax ka khatartay DNA wax la fiiriyo nafta kaaga baxo indhaha ku cadaadana ma la faaro ku kala lagu celiyo weeye nin halkaa soo socdo ma dhihi kartaa wiilkan ninkaas dhalay soo socda ka hogaamin hayana waa aabihii awoodtaas ma waxa la xamili kartaa ma